wanaagsan saaxiibadayo galabta waxaan joognaa magaalada Addis Ababa oo maalmaha ku sugnaa laakiin aanu u imanayna muuqaalada ka duubo oo aanu imin arrimo kale laakiin waxaan jeclaystay in aan ka duubo magaaladan quruxda badan ee dhisantay in yar oo kamid ah waliba aan ahayn meelaha quruxda badan ee inta badan aragtaan la soo duubo laakiin wadooyinkeeda iyo quruxda say tahay ayaan waxoogaa yar oo kamid ah idin duubay waxaan ku suganahay saa idin sheegay magaalada Addis Ababa caasimadda Afrika magaalo laga shaqeeyay aad moodaba kala joogtay inaad Dubai dhex maraso meelo kamid ah Dubai waxba kama dhacdo waxa laga yaabaa in meelo kamid Dubai ka qurux badan tahay marka waxaan leeyahay ku soo dhaw Addis Ababa caasimadda Afrika وهاجاك صاحب بيال سود وهذا هدان وحير إذا كشكيه وعن ديرين مجال أديس أبابا horta waxay ku jirtaa xilliyadii ugu jawga fiicnaa 2024 bishii saddexaad ay ku jirtaa waa xilliyada ay ugu roobka badan tahay oo magaalooyinka kale aynu garanayno way ka roob badan tahay roobkuna waa uga hor bilowmaa halkay kulul yihiin iyadoo xilligan waa qabow Addis Ababa waxay dhacdaa buuraleyda sare ee dhulka Itoobiya marka leenahay caasimadda Afrika waxaan ka wadnaa waxa ku taala xarunta midowga Afrika laakiin rasmi ahaan waa caasimadda dalka Itoobiya saynu sheegnay waxay dhacdaa buuraleyda sare ee Highlandka Itoobiya waxa lagu sheegaa mid kamid ah caasimadaha ugu jooga sareeya oo waxay jooga badda ka sareysaa in ka badan 2000 oo feet marka magaaladu way qabowdahay oo inta badan roob ayaa ka da'aya laakiin waxa lagu sheegaa magaalooyinka ugu hawada culus marka la xalay hawa cimilo yara adag bay leedahay laakiin roobka ayaa inta badan astura oo qaboojiya Addis Ababa waa magaalo laga fikiray maadaama ay tahay magaalo aad u population badan oo ay ku nool yihiin dhowr milyan oo qof oo tahay magaalo mashquul badan waxa loo sameeyay oo maskax la geliyay sidii baabuurta la isku hormarin lahaa ee nidaamka wadooyinka halka dadku marayaan iyo halka baabuurtu marayaan loo kala sixi lahaa waa magaalo kharash badan la geliyay marka leenahayna Dubai iyo la tartamasa meelaha saro saamalaha Dubai waa ay ka qurux badan yihiin Addis Ababa si kasta oo mashquul badan tahay oo mashquul u tahay haddana waxa jira meelo jawi degan leh oo jabad ku yar tahay oo loogu talagalay in lagu dalxiiso oo jawi lagu qaato oo aan ahayn imika halkan aan joogno laakiin laga yaabaa inaan marar kala tagno markan maadaama chance aan u hayn inaan tago meelihii loogu talagalay dalxiiska ee aan jeclaystay inaan idinla wadaago wadooyinka qurux badan ee Addis Ababa halkan aan imika marana waa xaafadda Soomaalida ee Boolimakel la yiraahdo waa bridge afar haado hoosta iyo afar korka ah oo la hoos mariyo oo dhawaan farta laga qaaday inda Boolimakel aragtena way garanaysaa bridge-kan oo waa mid cusub oo imika la sameeyay oo hoostana la marayo korkana la marayo dadku halay ka talaabayeen le Addis Ababa magaalo maskax badan la geliyay ma aqoon jacaylku waan matalay ma ogeyn dhibkiisa waan samaray maskaxdiyo qulubtu maalma degay maankiyo kaskaygu aad u miray ma jaraha dareenku meel waday midan deynba waayo imalmalay muuqeeda kaliyo mugmugay marwala la simaabu ma fashilay hayshee midaydii waan mulkii farxadii